waa dhacdo weyn mid ka mid ah xusuusaha iyo siyaarooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhaca waxaan idinkala soo hadlayaa halkan oo ah deegaanka Ceel Nuur duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkan maanta waxaa lagu qabtay siyaarada Allah u naxariistay sheekhi weynaa ee ummadda Soomaaliyeed ee Sheekh Xasan Macalin Muumin waxaana sidoo kale siyaarta kula lamaansan Sheekh Xasan Albasraawi siyaarada maanta looma kala harin oo waxaa ka soo qayb galay dariiqooyinka kala duwan ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca xalaqaadka kala duwan ee dikriga eebe ay halkan ku ogeen dikriga kadib si wada jira waxa warbaahinta ula hadlay culimadii ka soo qayb galay ugu horeyn Sheekh Maxamed Amiin ayaa sheegay in dhacdadan ay tahay mid weyn isagoo mahadceliyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha siyaarada galabta in la soo qatimitaan oo kala ma dhicin Ahmadiya iyo Qaadiriya oo isla soo guurtay oo inta nala imaatay oo yacni naf madadkan iyo nafaxaadkan ma dhicin jacayl ay walaalkooda iyo sheekooda u qabaan waay ilaahay muraadkooda Allah saalo Sheekh Axmed Sheekh Uways صاحب سجادها طريقة قادرية oo isna halkan ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay طريقada isagoo dadkii ugu baaqay in ay ku sugnaadaan طريقada eebe عزي iyo sharaf wuxuu ku jiraa ahbaabe طريقadaas uu ku jiraa طريقadaas ilaahay nagu cizeeya ilaahay nagu sharfa ilaahay nagu karma dad badan oo magac lahaa dad badan oo heer adduunyo ahaa magacoodii waa zuulay laakiin dadkii diinka ilaahay u khidmeeyay dariiqadaasi ka mid noqday magacoodii waa baaqi noqday aasaartoodii waa baaqi noqotay qoolkii ay sheegi jireen waa noo baaqi noqday sheekayna Sheekh Xasan Macalin Muumin Sheekh Usul Qaadiri waa ka horeeyay magaciisa ilaahay haddana waa taagan yahay qof walba diinkaas u khidmeeya dariiqadaas u khidmeeya khaliif hebel ala leeyahay khaliif hebel sheekayna Allah u naxariisto Sheekh Abdul Qaadir Bariire muxuu ku maqaam gaaray xadratullaahi ku maqaam gaaray leyladaas habeen walba uu istaagay oo qaadi ka ahaa ayuu ku maqaam gaaray qof walbaba wuxuu ku magac gaara ama ku maqaam gaara oo fi dunya wal aakhirah taqwada ilaahay inoo qabsado saalixiintan oo jeclaado wax lagu gaarana taqwada ilaaha ugu horeeyo jaceelka ku xiga إلهي محبضة الله نصير عز الدارين خير الدارين الله نياله شيخ أنوار تيس نور كيس نفحات كيس بركات كيس أمداد كيس الله نصير دين كي أنت أصل سو آخرنا بلد كائن بلد الأمين الله نوقدقه عذرك يا فد يا بلايد يا شرط يا حمان ورنا الله نوق حجاب قاتم ضنا الله نوصوبه قدام بينتي وحسوق بجبيجي مدش السيارة ده شيخ أحمد شيخ عبد الرحيم شيخ عثمان شيخ حسن معلم oo ah hogaamiyaha guud ee dariiqada Axmadiyada isagoo u duceeyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha siyaarada qof walba gurigiisa iyo firaashkiisa iyo cuntadiisa fiicneed wuxuu uga soo tagay oo inta u yimid meesha ku jira ikhwaanka marka raal ahaadaan qof walba muraadka u yimid Allah ka siiyo qof walba muraadka u yimid Allah ka siiyo meeshan waxa lagu ziyaaraha dad culus lagu ziyaaraha Sheekh Xasan Macalin iyo wiilkiisa Sheekh Xasan Sheekh Aadam oo dariiqada u soo kifaaxay asagana isku waqtiga laga dhigay wiilkiisa markuu yimid sheekh oo xijaabtay tashiga ugu horeeyay aan ku tashanno wuxuu Sheekh Xasan sheekhiisa la jiraa siyaarta wala isku darahan asagana waa aqbali Sheekh Xasan wuxuu qalbiga ku hayo ka dardaarmay
wiilkiisana uu kula dardaarmasoo noo sheegay aniga tii rab hadday ii timaado awshii xasan halaygu darwira nasiibkiisa hadda waa u noqotay marka nin nagu yarna ma aheenoo sheekh xasan sheekh aadan durqu suufiyo dhammaa taqiino anfacaya kitaabkiisa midigta allah ka siiye bacdigiisa ilaahay nama fidnayo duco waxaa noo duceeyey maaragtay sheekh mashi aweys asaa noo duceeyey intaa kuma ekaani siyaarada oo caawa halkan waxaa ka dhici doonta dhafarka siyaarada iyadoo khayraadka iyo xuska eebbana ay sii socon doonaan ilaa berri oo dhan